maayirka degmada Boorama ay weheliyaan mas'uuliyiinta shirkadaha nadaafadda ee magaaladani Boorama ee badbaado iyo horseed ayaa waxay maanta qada sharaf ku sii sabootiyeen xildhibaan Cabdicasiis oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee dalkaasi Sweden qada sharaftani oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxa xaggaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiinta shirkadaha nadaafadda ee magaalada Boorama iyo mas'uuliyiin kale waxayna sheegeen kulley maanta waxaan sabootiyeynaa oo hawshan u qabanay walaalkeen xildhibaan Cabdicasiis Diiriye oo runtii muddooyinkii u dambeeyay inagula sugnaa wadanka meelo badanna maray oo Soomaaliland ka mid ah hawlo muhiimana inoo waday aan rabnayna runtii muddooyinkan uu inala joogay hawlo badan aan wada qabanay oo ay ka mid ahayd arrimaha bulshadu Cabdicasiis waxaan leenahay waa wax laga filayay dadaalka uu inoola yimid iyo hawsha ay noo qabtayna waxaan leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inta ka bacdi maanta xafladan oo u daaran in lagu amba bixiyo xildhibaan Cabdicasiis Diiriye Daahir oo ka ah xildhibaan wadankii Suudaan oo waxyaabo badan oo khibradan aynu ka faa'iideysanay muddadii uu joogay maanta sharaf ay noo tahay inaan ka qayb qaadano amba baxaas oo ka soo qayb galno Cabdicasiis waa waxa dhameeyay Cabdikariin sida shirkadaha iyo maanta ay tahay jaamacadaha iyo dhammaan aynu wada shaqeyno laakiin waxaan ka mid ahaa dadkii berigii wadanka ka baxayay yara yaabay inay muuska joogo dhalinyartii aan jeclaa inay joogaan buu ka mid ahaa waayo waqtigaa isagoo aad u shaqeeyo ururada horumarka ka shaqeeya ayuu halkan ka tegay laakiin maanta waxaan dareemayaa in qofka halkan ka tagaa sidoo halkan ku ahaa hadduu meel kale tagana kaga sii wanaagsanaan maadaama laga yaabo inuu helo chance sidii halkan yaala qaar ka fiican qof kasta oo magaalada ka mid ah waxa waajib ku ah inuu nadaafadda ka shaqeeyo xusuus gaar ah iyo farxad gaar ah xildhibaan Cabdicasiis waa midii jaamacadda ka baxay wax badan waxaan leenahay runtii dadaalka iyo kartida badan u muujiyay qayb baan ku lahayn dhiigga ku jira qayb baan ku lahayn waanan bogaadinaynaa waana wax lagu farxo ugu dambeyntiina xildhibaan Cabdicasiis iyo sidoo kale maayirka degmada Boorama halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen Soomaalidu waxay tiraahdaa qiimaha qofkaaga qiimaha la saadadu qiimo u yeelato dadkeena haddii aynu saa isku dhigri galino oo aynu iska dhaafno waxyaalaha jalaafada iyo waxa imanaya kalgacal iyo isku soo dhawaansho iyo in qofkii ku dhiirado wixii maanta uu sameeyay inuu talaabo hore u sii qaado taasina waa bulshada ururisa horumarkana taageerta shirkadaha nadaafadda kulay gaar waan u sheekaysanay waxa sharafi ah gudoomiyaha noqon iyo anagu waxaan ahayn dadkii ugu horeeyay bilaabay fikirka in bal BB laga dhigo khashinka maadaama dawladda hoose marka awoodooda aad u koobnayd la joogo waxaan ballan qaadi doonaa insha Allah inaan wixii awoodayda ah ee galaan sameyn karo ee fursad degmada iyo dalka baan ugu soo faa'iideyn karo inaan qaado dad badan oo yimi way jiraan oo aan waxba ka faa'iidin hadalun mooyaane laakiin isagu maanta wuxuu noola yimi hab wax kale iska day magaalooyinka lagu nadiifin karo oo lagu nadiifiyo horumarka ku gaareen degmooyinka iyaga laga soo doortay runtii taa laftigeeda waa caqabad waxaan leenahay dadka kale qurba joogana at least haba yaraatee bal waxuun kula soo noqda dalka sida in badan aanu ka aragnay waanu rajaynaynaa qurba joogina wax badan iska bedelaan runtii hadda xoogaa tadawur bay sameeyeenoo dad badan bay la kulmeen oo dee gobolada kale ee Soomaaliland oo kale horumar ay sameeyeen laakiin tan Cabdicasiis oo kale gobolka Awdal malaha waa tii labaad ama haddana tii koobaad baahan runtii cid initiative la soo noqotay oo tiri war sidaan ay caalamkii yahay inaguna at least haddaynan gaarina caalamkii bal aynu processkan bilowno sidaynu approach garayno umayna ku xirantahay sidaynu gaarno insha Allah aad iyo aadna waa maasantii shirkadaha halkan fadhiya ee horseed iyo badbaado iyo jaamacadaha waxaan leeyahay aqoonta aad leedihiin waxa laga rabaa inaad nagu contribute garaysaan